in la xiriirsan laga ciidamada Soomaaliland ay ku leeyihiin magaalada Baran kadib markii ciidamadii Soomaaliland ee aagaasi ku sugnaa ay u diga rogteen dhanka Puntland ay waxa kale oo sheegtay ama ay soo bandhigtay sawirro muujinaya calanka Soomaaliland oo xarada laga dejiyay isla markaana lagu bedelay midka Puntland afeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Yuusuf Jaamac ku magac dheer Jaamac Dabarani oo kamid ah mas'uuliyiintii tagay deegaankaasi ayaa waxa uu waramay Axmed Cawiil oo ku sugan magaalada Garowe magaalada Baran sida soo tihiin maanta ciidamo Soomaaliland maamulka la yiraahdo ugu magacawnaa aaga ayaa ku soo wareegay dawladda Puntland ciidamadaasi oo muddo badan halkaasi joogay taliyaha ciidamada aaga ugu magacawnaa maamulka Soomaaliland oo ah in deegaanka dhanaad looga wada yaqaano sarkaala Yaasiin Ismaan Saalax Guray iyo ciidamadiisii iyo saraakiishii ka hooseysay iyo xaruntii ay ku shaqeynayeen iyo gaadiidkii ay haysteen nooc walba ahaa iyo dhammaan xaruntii iyaduna degmada u dhaweyd intaas ayaa ku soo wareegay Puntland taliyihii u qaabilsanaa Soomaaliland dhinaca ciidamada badda ee la qoray marka sidaas waa u dhaceen waa garta marka afayaan ciidan deegaanka Baran ka soo jeeda mise ciidamo kale oo weheliya jira oo Soomaaliland deegaanadeeda kale ka soo jeeda ciidanka sidiisa waa ciidan deegaanka ka soo jeeda laakiin muddo dheer ka tirsanaa maamulka Soomaaliland maantana muddo badan markay arkeen dhibaatooyinka uu maamulkaas ku hayo dadka Puntland iyo dadka deegaanka markii ay arkeen caqabadaha iyo mustaqbal la'aanta ee gobolka ku wado Soomaaliland waxa ay garowsadeen inay walaalahood dib ugu soo laabtaan waxa ay garowsadeen meeshii danta u ahayd inay aadaan oo ah in dadkooda iyo dalkooda ay horumarkiisa ka qayb qaataan afayaan sidaan la soconno deegaanadaas mararka qaarkood ciidamada kala duwan deegaankaas ku sugan marna Soomaaliland bay aadaan marna Puntland bay aadaan marka kuwan maxay kaga duwan yihiin kuwii hore waa laga yaabaa in hore waxyaabo noocaas ay uga dhacaan laakiin haatan shalay iyo maanta waa kala labo maanta ciidamadani waxay soo wareegayaan iyadoo dawladda Puntland sida ogsoontiin haatan ay hogaaminayo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ay ahmiyadda koowaad siinayso amniga iyo ciidamada oo ahmiyadda koowaad oo 3 jeer ay siinayso ciidamadana ay ogtihiin sida loo dhisay loo xoojiyay iyo sida horumarka dhinaca amniga ee ciidamada loo sameeyo marka anigu waxaan ku oranayaa ma dhacayso mana jirayso in sidii hore ay wax socdaan bila ka hor sidaas oo kale ciidan ka soo wareegay baa jiray Soomaaliland haatan waxa sheegaysaa ciidan kale inuu soo wareegay markaasna waxa Puntland ay muujinaysay in guud ahaan ciidankii Soomaaliland ee gobolka Sanaag ugu magacawnaa uu soo wareegay marka maxay tahay arrimaha hadda sheegaysaa leeyihiin Axmed ciidamada aad sheegaysid ee soo wareegay waa tiradii ugu badneyd bay ahaayeen kuwaasi malaha hadalka idin dhaafay tiradii ugu badneyd ee ciidamada Soomaaliland uga shaqeynayay deegaanka oo deegaanka ka soo jeeday ayaa ka soo wareegay maamulka Soomaaliland xilligaas oo Puntland ku soo wareegay waa ogeedeen dhowr boqol oo askari bay ahaayeen ciidamadii ugu badneyd bay ahayd Puntlandna waa dawlad weyn oo ciidamadeeda iyo dadkeeda iyo deegaankeeda iyo baahiyaheeda ku filan haddii ay dhacday in markaasi dhowr sarkaal oo ciidamo haysta ay jireen inay baaqdeen taas ayaa haatan la dhamaystiray dhammaanna waxay qayb ka yihiin howlgalka amniga iyo deganaanshaha iyo xasiloonida gobolka lagu sugayo iyo qorshaha u yaala dawladda Puntland iyo dadka guud ahaan gobolka Sanaag in gobolkooda uu noqdo gobol loo ogol yahay horumarka caqabadaha ay ka cawdaan dadka deegaanka waxa kamid ah horumarka maamulkaas aad u diiday gobol Axmed gobol wado loo dhisay oo hadda la qorsheynayo laami la saarayo oo jaamacad loo sameeyay oo ardaydu ay qabaan inay iskuulada u kalahaan anu ma garanayo si ay dadka deegaanka iyo ciidamadu ay u dooran karaan inay aadaan meel aysan waxba ka jirin sida la socono maalmo ka hor dagaal baa ka dhacay hadaabtimo oo Baran hoosna marka dagaalkaas dhacayna waxaad kaga sii jawaabteen arrintan ciidan aad soo xareyseen madaxweynaha Puntland nabad ku baaqay marka xagee wax iska qabsan laayeen afayeen dagaal ma ahayne in isku magacaabay inuu gobolka u qaabilsan yahay maamulka Soomaaliland ayaa isku dayay inuu dhimasho ku yimaado ciidamadana wuxuu kala kulmay mudnaantii uu lahaa ciidamada difaaca ee dawladda Puntland ayaa amniga adkeeyay oo ninkaasina u diiday inuu soo gudbo celiyay marka haddii gobolka amni darro ay Soomaaliland ku sameeyay istiraahdo oo laga jawaabana ma aha in Puntland ay nabad dhaawacday laakiin Puntland iyo dadkeeda iyo dalkeeda mar walba xaq bay u leedahay inay difaacdo كسوحوا afeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabarani oo qadka telefoonka ugu waramayay Axmed Cawiil dhanka kale barasabka degmada Baran Maxamuud Xaamud Cumar oo qadka telefoonka kula xiriiray isagoo jooga deegaanka Ahdaaftiimo ayaan bal weydiiyay waxa uu uga jawaabay arrinka ka soo yaray Puntland hadda waxaan joogaa Ahdaaftiimo
magaaladan barasabka ka ahaa waa baran anigoo kusii socda ayaa shaqo yar ila kodashay waxaan ku suganahay hadda joogaa waa hadaftimo oo 30 kilomitir jirta magaaladii aad barasabka ka ahayd iminka waxaa la soo sheegayaa inuu ka babanayo calanka Puntland oo gacan ku haynteedana ay la wareegeen ciidamo taabacsan maamulkaasi marka adigu arintaasi maxaad ka ogtahay calankii Soomaaliland badan uu yaalaa uuna suran yahay xafiisyadii dawladdu way shaqeynayaan mar haddii adigiiba aad ka maqan tahay magaalada waayo cidda maamusha xukuumadda maamusha anigana suuluga ah dhammaan bilaabay Soomaaliland xukuumad jirtay oo 28 sano jirtay weeye horana calankeedu uga taagnaa uuna ka taagan yahay isla iminkaba waxaynu ognahay in adigu qudhaada lagugu soo weeraray hadaftimo marka mar haddii magaaladii aad mas'uulka ka ahaydna aad ka maqan tahay soo lasma dhigi karo waxaad tahay nin baxsada hadalkaa lama odhan karo hadda ka hor waa tii lagu soo weeray magaalada hadaftimo kama aanan tegin iyadaan ku suganahay Soomaalilandna waan tegi doonaa baran oo maaragtay arrimahaas yar oo dhacay dartood baan ugu yara suganahay anigoo maaragtay raba inaan si nabadgelyo ah aan ku galo magaaladii baran waa meel Soomaaliland ba ka tarisa ummadda joogtana waa Somalilandis waa dareemi kartaa oo maaragtay gobolkan Sanaag ama gobolkan baran waa wadan Somaliland ah haddii marka run ay tahay waxaad sheegayso maxaa keenay marka in magaaladan oo intaas oo sano Soomaaliland ay gacanta ku haysay ay yimaadaan dad taabacsan maamulka Puntland magaalada waxa ku sugan maayarku ku sugan yahay maayarku xigeenku ku sugan yahay xogeeyada dawladda uu ku sugan yahay isdiiwayaashu ku sugan yihiin laamiga amaanka booliska ku sugan yihiin anigoo ba safar shaqo waxaan uga soo baxay Hargeysa xukuumadda inteedii kale waxay ku sugan tahay oo joogtaa waa magaalada badan laakiin ciidankii hore u joogayba waxaan ognahay inay ku biireen dhanka Puntland adigana haatan magaalada aad ka maqan tahay dadka deegaanka oo inoo hadalna ay sheegeen in haatan Puntland ay gacanta ku hayso magaaladaasi marka maxaa cadeyn oo muujinaya in Soomaaliland wali ay ka taliso magaalada ciidan Soomaaliland oo maaragtay Puntland ku wareeg ma jirin waxa jiray nin maaragtay shaqadii uu qaranka u hayay ku fashilmay isla markaana markuu ogaaday in gobolka shaqadaba laga qaban doono xagga iyo Puntland iskaga sii holoolay xaggana waxba la joogin xaggana waxba la tagi doonin magaaladaas waxba kama jiraan xukuumaduna maaragtay intii kale oo dhan baa shaqeynaysa oo shaqadii si caadi ah uga socota dhamaanteed cutubiyadii ciidamada Soomaaliland qayb kamid ah baa barakule taliyadii waa shaqeynaya intuba way jiraan wararku ku turkuteena ciidan baa ku sheegtay ciidaas iyada maaragtay warkeeda gudbisanaysa laakiin warka dhaba aan xukuumadda Soomaaliland kala shaqeynayna aanu mas'uulka ugu nahay waa dawlad meesha ka shaqeynaysa kaasi wuxuu barasabka Soomaaliland u qaabilsan degmada Baran Maxamuud Xaamid Cumar oo qadka telefoonka